بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan akhyaarta ku xiran channelka soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharxo sida aad facebookkaaga gmail iyo number aad ugu xiran lahayd asxaab qaar ayaa isu weydiiyey sidee baan gmail iyo number ugu xiranaa facebookgeena lacala hadduu facebooka naga dhumo si aan usoo ceshano ama haddii nalaga dhaco si aan markaasi usoo ceshano gmailka ama numberka markaas noo xiran aan ugu soo ceshano si aan ku tuso marka ugu horeysa waxaad tagtaa applicationkaaga facebook waxaad ka xulataa saddexda ilig ee sar gacantaada midig kadib waxaad kasii xulataa halka hoos ay ku qoran tahay settings and privacy waxaad kasii xulataa halka ay ku qoran tahay settings intaa kadib waxaa kusoo bixi doono linkan dheer waxaad ka xulan doontaa personal information markuu personal information kusoo baxo waxaad ka xulanaysaa halka ay ku qoran tahay contact info markaad taawtid halkan waa gmail iyo number mar hore ugu xirnaa haddii aad u baahan tahay inaad number ku xirtid waxaa leedahay ad number haddii kale aad gmail u baahan tahay waxaa leedahay ad gmail waxaa leedahay marka ad numberka aad ku dhufsanaysaa kadib waxaa kusoo baxaya box yar oo loogu talagalay numberka in la geliyo halkan ayaad taawanaysaa marka kadib waxaad gelinaysaa numberka markaa artid inaad ku xirtid oo hadhow verification code lagugu soo dirayo insha allah markaad gelis kadib waxaad taawanaysaa confirm markaad taawad kadib halkan waxaa kugu soo qormayso enter confirmation ama message-ka lagu soo diray meeshaan taawo marka enter confirmation markaad taawatid waxaa kusoo baxaya boxka yar ee loogu talagalay inaad markaasi confirmation code-ka aad gelisid message-kan wuxuu kugu soo dhacaa lambarka meesha markaas aad gelisay aniga hadda waa ii soo dhacay waa 2012 eber kadib waxaan leeyahay confirm sidaas ayuu markaas ugu xiran waxaa leedahay marka close markaa dhaaday kadib waaba ku xiran yahay waxaa kusoo darsamay marka listiga meesha waxaa kusoo darsamay lambarka aad gelisay waa kana hadda aniga lambarka aad meesha geliyay hadda waa kan intuu kusoo darsamay listigan ayuu markaas kusoo darsamay lambar badan ku xiran kartaa gmail ku xiran kartaa inta u baahan tahay marka waa intaas farsamadaas waa muhiim inaad adeegsato sababtay tahay facebooka wax walba ayaa ku dhici karo kuma haysanin daawashada fadlan janaalka ku cusubtaa subscribe saar lana wadaag asxaabtaada muuqaalka usii share garay haddii aad ka heshay muuqaalka like saar inta aan ku kulmayn muuqaalka xiga waxaan igaga tagay sida iyo salaamu calaykum